السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعواتشهاد qiimaha iyo qaayaha badanow waa barnaamijkeennii taxanaha ee ka hadalnay arrimaha saxaafadda. Haddaba sidaan barnaamijka ku soo xusnay, saxaafigu waxa muhiim ah inuu dhexdhexaad ka noqdo xog kasta iyo warbixin kasta oo gudbinayo. Haddaba dhexdhexaadnimada suxufiga waxaa ka kow ah ee suxufiga looga baahan yahay inuu noqdo qof u dhexeeya arrimaha dhacaya. Dadku way ku siman yihiin, maaha inaad qaarna soo dhaweyso qaarna aad fogeyso. maaha kaalinta suxufigu amaba wariyaha war soo gudbinaya inuu kala xukumo afkaarta uu gudbinayo, saxnimadooda iyo walibana inay qaldan yihiin, amaba se uu dhexdhexaad ka galo arrimaha iyo afkaaraha ay isku hayaan laba aragtiyood oo iska soo horjeeda. Balse isaga waxa waajib ku ah inuu soo gudbiyo ra'yiga labada dhinac, waxa goobta uu joogo ka dhacaya ee socda waqtigaasi iyo duruufaha meesha ka jira. Mar walba waxa kula gudboon inaad iska hubiso fikirka labada dhinac ee aad gudbinayso. taasina waa tiirka ugu weyn ee saxafiga iyo saxaafadda. Haddaba daawadayaal, qodobka labaad waxaan ku soo qaadan doonaa isticmaalka luqadda iyo ereyada. Haddaba luqadda aan doonayno inaan ku hadalno waa hadba ta ay ku hadlaan ama ay isticmaalaan dadka lala hadlayo xog loo gudbinayo, ha noqoto mid ah Soomaali amaba se ha noqoto mid ah afafka shisheeye ee kale. Wariye kasta waxaa qasab ku ah inuu yaqaano luqadda dadka wax u sheegayo. intaasi kadib waxa uu ka fikiri karaa inuu ku hadlayo luqad ay fahmi karaan iyo isticmaalka ereyada uu isticmaalay ee ku jira hadalladiisa. Iska dhowr inaad isticmaasho ereyo yeelanaya laba macne ama wax ka badan. waxa kale oo aad maanka ku haysaa kuwa si kala duwan looga yaqaan deegaamo kala duwan. marka aad diyaarinaysid warbixin ka hadlaysa xaalad meel ka jirta, inaad isticmaasho luqadda dadka caadiga ah ay ku hadlaan marka ay sheekaysanayaan oo kale. haddii aad isticmaasho luqadda ama ereyada ay isticmaalaan suugaanyahanadu, cidda kaliya ay ku fahmi kartaa waa suugaanyahanada, balse way ku adkaanaysaa inay ku fahmaan dadka caadiga ah. hana aaminin in la wada fahmo waxa aad sheegayso, laakiin waxaad u kuur gashaa oo la sheekaysataa dadka bal inay wax dhaliil ah kuu sheegaan si aad u saxdo. haddaba waxa kale oo jira wax loo yaqaano afguri. afgurigu waa ereyada ay isticmaalaan kolba deegaanka aad joogto oo aanay kula fahmayn deegaanada kale. iska hubi in dadka oo dhami ku fahmaan. iska hubi inay kula fahmayaan dadka oo dhami ereyada afguriga. tusaale ahaan, ereyga beed reer Somaliland waxa ay u yaqaanaan beed. Soomaaliya waxa looga yaqaanaa ukun. dadka reer Djibouti waxay u yaqaanaan naalo. haddaba kala duwanaanshaha ayaa keenaya in aan la wada fahmin waxa aad sheegayso mararka qaar, taasoo ay saameyn ku yeelanayso afgurigu oo ah ereyada ay isticmaalaan deegaano kala duwan. sidaa daraaddeed, hadba ereyga aad isticmaalaysa wuxuu ku xidhan yahay halka aad joogto. markaa afgurigu ma xuma haddii ay kula fahmayaan dadka deegaankaasi. bal ka waran haddii aad ereyadan ku darto oo ah ereyo afsuuqdi ah. tusaale ahaan, tuushka ayuu cararay, horuu u soo fadhiyaa, waan soo kala toosay, wuu u jaakadhay iyo wixii la mid ah. dhammaan ereyadaasi waa qaar u gaar ah dhalinyarada da'yarta ah ee waqtigan, mana aha kuwa ay fahmayaan dadka waaweyn ee waalidka ah. markaa waa arrin aan bannaanayn suxufi inaad isticmaasho ereyada noocaas ah. tusaale kale, ereyadan soo socda waxay noqon karaan aflagaado ama ammaan. dadka qaarkii way farxad gelin karaan, qaarna way ka cadhoon karaan. tusaale ahaan, argagixiso, xag jir, kooxda mayalka adag, takfiir, kooxo canaasiir ah, ciidanka alle, khawaarij, xukuumadda ridada, cadowga alle, mujaahid, murtad, nabaddiid, kooxaha fallaagada ah iyo wixii la mid ah. haddaba isticmaalka ereyadaasi waa laga taxadiraa, waayo haddii aad qaar isticmaasho, ogow inaad ka baxday dhexdhexaadnimadii. waana ereyo adduunka lagu kala aragti duwan yahay. tusaale ahaan, Maraykanku Daacish waxa uu yaqaanaa urur argagixiso, Ruushkuna Chechnya waxa uu yaqaanaa argagixiso, Philippines Abusiyaaf waxay u taqaanaa argagixiso iyo wixii la mid ah. amaba se suxufi aad isticmaasho ereyo ay ka mid yihiin oo aalaba ay isticmaalaan dadka suxufiyiinta oo ah luqad aan ahayn ta Soomaaliga, balse iyada oo ay warbixin af Soomaaliya soo gudbinayaan ay ku daraan ereyo luqadda Ingiriisiga ah, gaar ahaan marka ay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda. haddii aad tiraahdo governmental election waxa ay dhacaysaa, haddaba suxufi waxaa laga yaabaa ereyga aad isticmaashay inaysan fahmin dad badani, taasoo carqalad ku keenaysa dhegaystayaashaada amaba se daawadayaashaada. ama aad sidoo kale hadalkaaga u dhigto sida tan: electionka waxaa la qabanayaa 2021, adigoo isticmaalaya luqadda afka Soomaaliga ayaa haddana ujeedadii aad ka hadlaysay waxa aad ku sheegtay luqad aan ahayn tii aad wax ku gudbinaysay. taasina waxay carqalad ku keenaysaa dadka kugu xidhan. sidaa daraaddeed, muhiimaddu waxa weeye inaad mar walba ka taxadirto oo aad iska ilaaliso isticmaalka ereyo aanay awoodin inay fahmaan daawadayaashaada amaba se dhegaystayaashaada kugu xidhan. haddaba daawadayaal, waxaan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.